barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa si adag uga hadlay weeraradii kala duwanaa ee ciidamada qaranka Soomaaliland ku soo qaadeen ciidamada dalka Soomaaliya ee ku sugan duleedka Garowe ee caasimadda maamulka Puntland sidoo kale wuxuu barasaabka gobolka Togdheer si weyn ugu mahadceliyay suxufiyiin ka dareeray telefishin laga leeyahay Soomaaliya gaar ahaan Puntland oo ku dhex milmay colaadda iyo siyaasadda labada dal isla markaasna warar iyo barnaamijyo liddi ku ah qarannimada Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay laga baahinayay kuwaas oo halis ku ah ammaanka qaranka Soomaaliland waxaad ogtihiin in maleeshiya beelaadka Puntland oo kaashanaya dawladda taagta daran ee Soomaaliya inay muddo ka wadeen deganaansho la'aan xuduudka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland waxaad ogtihiin in ay laba jeer soo qaadeen weerar oo ay ku soo qaadeen fariisimada ciidanka Somaliland ay ku leeyihiin jiida waxaad ogtihiin qaranka jamhuuriyadda Somaliland inuu yahay qaran nabadda jecel qaran jecel wadamada dariska ah inuu kula noolaado nabadgelyo khudbadii u horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland markii uu xilka la wareegay waxa ku jirtay Somaliland inay diyaar u tahay inay kula noolaato wadamada dariska ah jaarnimo walaalnimo daris wanaag inay kula noolaato kan aad ugu mahadnaqaya shaqaalihii SBS u joogay gobolka oo maanta markay u dul qaadan waayeen qaabka uu shaqeynay TV-goodu aan isku casilay oo shaqadii kaga tagay oo wax weeyaan shaqaalaha soo muujiyay muwaadinimo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo maaragtay shaqada wanaagsan ay qabteen aan uga mahadnaqayaa qaar ka mid ah wariyaashii ka tagay TV-gaas ee iyagu ka doorbiday jiritaanka qarankooda isla markaasna muujiyay daljacayl ayaa ku sababeeyay shaqo ka tagistooda sidan maanta waxaan halkan ka shaacinaynaa haddaan nahay howlwadeennada telefishinka SBS ee gobolka Togdheer inaanu maanta sidaa kaga dhaqaaqnay xilkii aanu haynay telefishinka SBS ee gobolka Togdheer sababtaan uga tagnay haddii aan raaciyo wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay caadaystay toddobaadkii ugu dambeeyay gaar ahaan inuu ka bilaabo waddanka Somaliland propaganda iyo kicin dadweyne taasoo uu ku dhiirigelinayo dadka dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Tukaraq telefishinku wuxuu qayb lixaad ka qaadanayaa sida hadda muuqata burburka qarannimada jamhuuriyadda Somaliland taana haddaanu nahay dhalinyarada warbaahinta ee gobolka Togdheer ma aha mid aanu ogolnahay oo aanu qarankayga ka doorbidayno inaanu shaqo yar aanu siisano kana mid ah halwadanada telefishinka SBS ee magaalada Burco guud ahaan iyo gabi ahaanba anagoo isku duuban shaqaalaha gobolka Togdheer maanta waxaan halkan ka cadeynaynaa inaanu joojinay dhammaanba shaqadii aanu haynay telefishinka SBS maadaama uu sameeyay falal buubuunin kicin iyo caarin ah ugu sameeyay bulshada degan Somaliland iyo Puntland waxaanu dhamaanteen anagoo isku wada duuban halkan ka cadeynaynaa inaanu shaqadii telefishinka aanu haynay aanu ka wada tagnay sababaha telefishinka shaqadiisa aanu joojinay waxa ka mid ah markuu telefishinka ku kacay dumin qaranka Somaliland oo ah qarankayga Somaliland dagaal cad iyo fawda cad oo kula kacay telefishinkaas dawladda waxa ka codsanay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado annagoo ah howlwadeennadii telefishinka ka shaqeynayay dhammaan waxaanu kaga raalinahay inay dawladdeedu tallaabo ka qaado si rasmi ah uga cadeynayna inaanu joojinay shaqadii aanu ka haynay TV-ga SBS ee magaalada Burco markuu ku kacay falal ka duwan anshaxa saxaafadda aan la mid ahayn markuu ku kacay waxaanu cadeynaynaa anagoo isku duwan inaanu joojinay shaqadii aanu haynay TV-ga Mustafa Cismaan magaalo warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Burco.